kula waxana wanaagsan idlaantii madaawadayaal ku soo dhawaada Toos TV iyo wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ciidamada militariga dalka Itoobiya oo garabsanaya kuwa Eritrea ayaa furin cusub oo dagaal ka furay xuduudda u dhaxaysa deegaanka Canfarta iyo Tigreega sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Liyu booliska deegaanka Amxarada ayaa habeenkii xalay ahaa lagu dilay magaalada Bahardar ee caasimadda deegaankaasi maamulka dowladda deegaanka Canfarta ayaa sheegay in ka badan 107,000 oo qof in ay ku soo barakaceen dagaalka ka xuduudda deegaanka Canfarta iyo gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa walaac xoogan ka muujiyay dagaalka dabada dheeraaday ee ka socda waqooyiga dalka Itoobiya dowladda Jarmalkana waxay walaac ka muujisay ciidamada Eritreanka ee ku sii qulqulahaya waqooyiga dalka Itoobiya si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro falaagada TPLF qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkan idinku soo gudbin doonaa halkani waa Toos TV taariikhdu waa 22 bisha September sanada 2022 daawadayaal ku soo dhawaada warkii faahfaahsan aynu ku bilownay xilli dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya oo galay bishii labaad labada dhinac ee TPLF iyo dowladda dhexe ee Itoobiyana ay soo adeegsanayaan tabar iyo taagba waxay hayeen dhinaca kalena dowladda federaalka Itoobiya ay garab iyo gaashaan ka helayso ciidamada militariga dalka Eritrea dowladda Jarmalka ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarka ciidamada Eritrea ay ku qaadeen gobolka Tigreega Jarmalka waxa uu ugu baaqay dhinacyadu in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya sidoo kalena waxay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ay khusayso in la sameeyo xabad joojin si loo soo afjaro dhibaatooyinka ka sii hulaaqahaya waqooyiga dalka Itoobiya dhinaca kale dowladda Jarmalku waxay si weyn u eedeysay madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki iyo sidoo kale ciidamada Eritreanka halkaasi ku sii qulqulay iyadoo sheegtay in aan loo baahnayn xilligani in ciidamada Eritreanka ay qayb ka noqdaan dagaalka u dhaxeeya falaagada TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya iyadoo sheegtay in dagaal ay soo qaadaan ciidamada militariga dalka Eritrea ay sabab u noqon karaan in kumanaan shacab ay ku barakacaan dhinaca kalena ay tacadiye kala duwan ka geystaan deegaanka Tigreega ciidamada dalka Eritrea ayaa marar kala duwan lagu eedeeyay inay dagaal kaga jiraan xuduudaha deegaanka Canfarta iyo Tigreega deegaanka Amxarada iyo sidoo kale xuduudda gobolka Tigreega uu la wadaago dalka Eritrea dowladda Mareykanka ayaana dhowr jeer u soo jeedisay hanjabaad iyo sidoo kale dhaleecayn xoogan iyadoo hay'adaha qaramada midoobay ay ku eedeeyeen in ciidamada Eritreanku halkaasi ay ka geysteen dhibaato xoogan TPLF ayaa dhowr jeer oo hore u hanjabtay dowladda Eritrea iyadoo sanadkii horena duqeymo ka geysatay magaalooyinka xuduudda ku yaala dalka Eritrea balse Siyaas Afwerki madaxweynaha dalka Eritrea oo khatar weyn u arka ciidamada Tigreega ayaa hadda garab siinaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si looga guuleysto falaagada TPLF sargaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya waxa uu sheegay in ay kala saari laayeen shacabka Tigreega iyo sidoo kale TPLF waxa uu yiri waxaan anagu weerar iyo dagaal ku haynaa TPLF oo kaliya anagoo ilaalinayno in shacabka Tigreegu ay ka badbaadaan colaadan ciidamadeenu waa kuwa geesiyaal ah oo si taxadar leh u fulinaya howlgallada iyo sidoo kale weerarada lagu adkeynaya sharciga dhinaca kalena lagu doonayo in lagu soo afjaro falaagada TPLF ee doonaya inay burburiyaan dalka Itoobiya balse dhibaatada ugu xoogan ee naga haysata waqooyiga waa in dadkii shacabka ahaa iyo TPLF la kala saari laayay isagoo dhinaca kalena TPLF ku eedeeyay in caruurta haweenka iyo sidoo kale dadka aan awoodin inay dagaalka galaan ay keenayaan furimaha hore ee dagaalka sargaalkan ayaa sheegay duqeymaha ciidamada militariga dalka Itoobiya ay geysteen inay ku bartilmaameedsadeen fadhiisimaha ciidamada Tigreega iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee ciidamada TPLF hogaaminaya waxa uu sheegay in caqabad weyn ay kala kulmeen xaaladda waqooyiga dalka Itoobiya kadib markii ay kala saari waayeen shacabka Itoobiyaanka iyo sidoo kale ciidamada TPLF iyo hogaamintooda korneelkan oo lagu magacaabo Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay TPLF in ay hadda hubka dhigis ku dhawaaqdo dhinaca kalena ay joojiso dagaalka ay kula jirto ciidamada dalka Itoobiya kuwaas oo uu sheegay in ay dabada ka riixayaan wadamo shisheeye dagaal xoogan ayaa saaka ka qarxay xuduudda u dhaxaysa deegaanka Canfarta iyo gobolka Tigreega ciidamada militariga dalka Itoobiya oo garabsanaya kuwa Eritrea ayaa gaasi saaka ka bilaabay dagaal xoogan oo ay ku beegsanayaan fadhiisimaha ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF ciidamada dalka Eritrea ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay ku sugnaa xuduudda deegaanka Canfarta iyo Tigreega iyagoo ka soo galay deegaanka Birhale tan iyo intuu bilowday dagaalka dib uga qarxay gudaha dalka Itoobiya ciidamadan aagaasi soo weeraray waxa dhinaca kale ku garabsiinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dronka iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterka ee militariga ee dagaalka loo adeegsado dagaalkan oo ah
mid khadhaadh ayay dhinaca TPLF-na furimaha dagaalkaasi ku soo arurinaysaa kumanaan ka tirsan dagaalyahanadeeda si ay iskaga caabiso ciidamada aagaasi dagaalka ka soo qaaday. maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada dalka Eritrea ay weerar ballaadhan ku soo qaadeen xuduudda gobolka Tigreega uu la wadaaga dalka Eritrea, iyadoo TPLF-na ay sheegtay in la doonayo in dagaalkaasi lagu gumaado shacabka Tigreega. deegaanada Baadhame, Salambasa, Trezona, Shireero, Shire iyo deegaano kale oo ka tirsan xuduudda gobolka Tigreega uu la wadaaga dalka Eritrea ayay maalmihii u dambeeyay dagaalo xoogan ka socdeen, inkastoo ciidamada Eritrea aagaasi dagaalka ku soo qaaday aysan ku guuleysanin bataatanba in ay gudaha u soo galaan deegaanka Tigreega. marka laga yimaado dagaalka saaka ka qarxay xuduudda u dhaxaysa deegaanka Canfarta iyo Tigreega, dagaal xoogan ayaa ka socda waqooyiga gobolka Gondar iyo sidoo kale deegaanada gobolka Wollo, iyadoo ciidamada militariga Ethiopia ku Eritrea liyu boolisyada deegaanada kala duwan ee Ethiopia ay halkaasi iska caabin xoogan kala hortageen falagada TPLF oo maalmo ka hor qabsatay degmada Addis Arkay, dhinaca kalena u soo dhaqaaqday deegaanka Dashane ee Ziminzon Gondar ayaa isku dayaya inay u ruqaansadaan dhinaca magaalada Gondar si ay halkaasi oo la wareegaan. ciidamada TPLF oo u jiray wax ka yar 82 kilomitir maalintii shalay ahayd ayaa la sheegay saaka in ay dib u soo ruqaansadeen kadib markii ay iska caabin xoogan kala kulmeen ciidamada militariga Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska ee aagaasi ku sugan. dagaaladan ka socda gudaha dalka Ethiopia ayaa galay wajigii saddexaad. labada dhinac ee Ethiopia iyo TPLF-na waxay adeegsanayaan tabartoodii iyo taagtoodii ugu dambeysay, iyadoo mid walba midka kale uu isku dayay inuu ka guuleysto dagaalkan xilligan lagu jiro. isku dayo lagu doonayay in lagu xalliyo dhinaca kalena lagu saafjaro khilaafka colaadeed ee ka taagan gudaha dalka Ethiopia ayay ku guuldareysteen dalalka Mareykanka, midowga Yurub, midowga Afrika iyo sidoo kale beesha caalamka oo si weyn iskugu dayeysay in mar un la soo afjaro xaaladan colaadeed ee ka taagan gobolka Tigreega. dagaaladan hadda ka qarxay dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in Ethiopia iyo Eritrea ay doonayaan in ay ku soo afjaraan falagada TPLF, balse TPLF ayaa xilligan la sheegaya in iyadu ay furimaha ka heshay hub casri ah iyo sidoo kale taangiyada waaweyn ee dagaalka, iyadoo iska caabin xoogan kala hortagaysa ciidanka militariga dalka Ethiopia. xilli dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia ay maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanayaan, deegaanka Canfarta ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed ku aadan colaadda ka holaaqaysa gudaha dalka Ethiopia, gaar ahaan xuduudda deegaanka Canfarta iyo gobolka Tigreega. Canfartu waxa ay sheegtay in ciidamada Tigreegu ay weerar qaawan ku soo qaadeen deegaankooda, dhinaca kalena ay dab qabadsiiyeen degmooyinkii iyo qabalayaashii ku teedsanaa xuduudda labada deegaan ee Canfarta iyo Tigreega. waxay intaasi ku dareen in ka badan 107,000 oo qof oo shacab ah in ay ku soo barakaceen dagaaladaasi, iyagoo haatan la ildaran xaalad cunno yaraaneed iyo sidoo kale daawo la'aan. waxay sheegeen in dadkan shacabka uu ku sugan yahay duleedka magaalada Samara ee caasimada deegaanka Canfarta iyo deegaano kale oo dhaca xuduudda deegaanka Canfarta iyo deegaanka Tigreega. waxay sheegeen in hay'adaha gargaarka iyo beesha caalamkaba loo baahan yahay in shacabka Canfarta ee aagaasi ku sugan gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo. TPLF ayaa horey ugu eedeysay dowladda federaalka Ethiopia deegaanka Canfarta, Amxaarada iyo dalka Eritrea in ay ka gooyeen, dhinaca kalena ay ku soo rogeen cunaqabatayn aad u xoogan oo sababtay in hay'adaha gargaarka iyo beesha caalamkuba ay gaarsiin waayaan mucaawanadii loogu talagalay shacabka Tigreega. baaqan ka soo baxaya shacabka Canfarta ayaa u muuqda in ay ku baabeen ama ku leedeen dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday deegaanka Canfarta iyo sidoo kale gobolka Tigreega. sidoo kale baaqan ayaa ku soo aadaya xilli saaka furimo cusub oo dagaal oo hor leh ay ka furmeen deegaanka Canfarta iyo sidoo kale xuduudda gobolka Tigreega, iyadoo dagaalkani ay qayb ka yihiin ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa Eritrea. deegaanka Canfarta ayaa lagu xasuustaa in xasuuqyo ba'an ay ka geysteen xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida uu la wadaago deegaanka Canfarta iyagoo garabsanaya ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo sidoo kale liyu booliska deegaankaasi. inkastoo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ay ka gaabsatay, dhinaca kalena ay dhul Soomaaliyeed ku wareejisay, welina gacanta Canfarta ay ku jiraan ciidamo liyu boolis iyo shacab ay ka qabsadeen deegaanada dan la helay iyo sidoo kale Cadayto, Candhuufta iyo Garbaciise. haddana Canfarta waxaad moodaa in uu ku dhacay nabsigii Soomaalida ay ka galeen muddada 2 sano. dowlad deegaanka Amxaaradana sargaal sare oo ka tirsan ciidanka liyu booliska Amxaarada ayaa habeenkii xalay ahaa lagu dilay magaalada Bahardar ee caasimada deegaankaasi. taliye Wego Tareka oo ka mid ahaa booliska deegaanka Amxaarada ayaa xalay habeennimadii lagu toogtay gudaha magaalada
Bahardaar dabley hubaysan oo aan haybtooda la garanaynin ayaa taliyahani toogtay kadibna way ka baxsadeen sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo aan ka helay dowlad deegaanka Amxaarada. Arrintan ayaa la sheegayaa in ay salka ku hayso kadib qabashadii Saman Kasai oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee maleeshiyaadka Fano ee deegaanka Amxaarada sida weyn uga howlgalo, kuwaas oo militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada federaalka Itoobiya ay doonayeen in ay u gacan galiyaan dowladda federaalka kadibna laga dhibo magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi. Maamulka deegaanka Amxaarada ilaa iyo hadda wax war kama aysan soo saarin sababta korneylkani loo toogtay iyo cidda toogatay, ilaa iyo haddana gacanta laguma soo dhigin. Deegaanka Amxaarada ayay ka taagnaayeen maalmihii u dambeysay baxsad ciidan, toogashooyin iyo sidoo kale falal lid ku ah dowladda federaalka Itoobiya iyo deegaankaasi, waxaana la sheegay in inta badan dilalka noocan ay fuliyaan ciidamada maleeshiyaadka Fano, kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, dhinaca kalena ku eedeeyay in ay doonayaan in ay burburiyaan shacabka Amxaarada. Isku soo duuduubo ciidamada deegaanka Amxaarada ayaa la kulmayay xaalada aad u xoogan. Dhinaca kalena suuqa madow ee sarifka lacagaha Itoobiya ayaa si xawli ah u socda. Farqiga u dhaxeeya sicir bararka aan rasmiga ahayn iyo kan rasmiga ah ayaa gaadhay meeshii ugu sareysay abid. Intuu bilowday dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiyana waxaa hoos u sii dhacaysay lacagta birta ah ee dalka Itoobiya laga isticmaalo, iyadoo dagaalkan dib u soo laba kacleeyeen uu sabab u noqday in lacagta birta ah ee gudaha dalka Itoobiya ay dhulka taabato, dhinaca kalena ay hoos u dhacdo. Sicir bararka iyo nolosha si adkaanaysa ee dalka Itoobiya ayaa lagu sababeeyay colaadda ka taagan dalkaasi iyo in dowladdu ay u maaraladahay sidii ay u xadidi lahayd colaadaha ka hulaaqaya gudaha dalka Itoobiya iyo lacagta Itoobiya dhulka ku sii dhacaysa, iyo sidoo kale sicir bararka maalinba maalinta ka dambayso cirka isku sii shareerahaya. guud ahaanba dalka Itoobiya waxaa laga dareemayaa maciishad aad u xoogan, waxaana adkaatay nolosha caadiga ah ee bulshada Itoobiyaanka, iyadoo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ee ku sugan xuduudda dalka Soomaaliya iyo deegaanka Soomaaliduna ayba u sii daran yihiin marka loo fiiriyo xaaladda guud ee dalka Itoobiya. shidaal la'aan iyo saliid la'aan xoogan ayaa ka taagan magaalada Addis Ababa iyo magaalada Hawaasa iyo sidoo kale deegaanada Canfarta, Amxaarada, deegaanka Guraagada iyo sidoo kale deegaanka Benishangul iyo guud ahaanba dowlad deegaanada kale ee dalka Itoobiya. daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyay dagaalada ka socda dalka Itoobiya, waxaana idinku soo gudbin doonaa warbixinadeena dambe hadduu eebba yiraahdo. halkaad weli nagala socotaan waa Toos TV. tan iyo intaan ku kulmi doona barnaamij kale waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.